السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بالهواء إذن سلامي ميل والبدون دافير كجوكتين وانو قفك إذن الله الله يا كل برتي قد عبنيسن وبريه بركمدا ان actually maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo lottery wali waxaan doonayaa si qaas ahaan inaan ula hadlo dadka 2023 winners ka noqon doona insha Allah bidan la kareem May 7keeda ama May 7deeda haduu Ilaahay na gaarsiiyo oo ma aragtay ma kama harin bilooyin kama harin just a week bas ka hari weeks adiga at least waxaan dhigi karaa 2 weeks and maybe 5 days camal ka hartay haduu Ilaahay na gaarsiiyo insha Allah bidan la kareem marka waxaan jeclaystay inaan dadkaas idea ama fikrada ama waanooyin ma aragtay aan la wadaago ayaan rabay waayo waxaa dhici karto dadka inay isdhigtaan waa san ogsoontihiin oo hore idinku soo sheegay laguma soo diri doono email ah in lagu dhahayo waad guuleysatay walaal ama hiblo ama hiblaayo waad guuleysatay emailkaaga ha ka sugin waa inaad maaragtay page-ka aadaa meeshii laga fiirsanaa aad kusoo apply garaysa aad kusoo fiirsataa in lagu select gareey in lagu select gareynin okay after that haddii lagu select gareeyay waxaa wanaagsan on time inaad maaragtay ku buuxiso DS260gaaga sida hore idinku sheegay selectionka micnaheeda ma aha inay guarantee tahay in lagu qaadayo ma aha guarantee way waxa dhici karto in 200,000 oo qof la dhaho waa la idin select gareey wax loo baahan yahay in la qaadano waa 55,000 ilaa iyo 50 mar 80,000 la dhahay 80,000 ilaa hadda ma implement gareynin oo la yani wali lama hirgelinin oo wali ma bixin 80,000 oo lottery ayaa maanta tagay lama dhihin wali ama last year ama sanadka kasii horeeyaba ama kan hadda ama aragtay dadka socdaanba ilaa hadda wali processkooda socdo oo maaragtay ma gaarin 55,000 marka haddii lagu select gareeyay micnaheeda ma aha automatically guarantee way lagu madlaha waad bixaysaa waxaa laga yaabaa adigoo lagu select gareeyay in lagu soo xiriiri waayo fiisaha available ka ah waa 55,000 mar 55,000 waxaad kaga guuleysan kartaa chance-ka ku wanaagsanaan kara in aad on time ku buuxiso DS260gaaga kulli waad arki doontiin umaleynaya waxaa ku qoran meesha selection doesn't mean that you are guarantee inaad bixiso or you are going to get your visa ma aha marka waxaa macquul ah in lagu qaadan waayo in lagu la soo hadli waayo macquul ah adigoo DS260 buuxiyo hadaa dib u dhacdid waayo hadii laakiin on time ku buuxisid by maaragtay May markii lagu soo sheegay isla May gudaheeda hadaa buuxisid ama June buuxisid in lagu qaato waa possible marka dadaala waxaad ku dadaashin inaad maaragtay as fast as possible inaad foomka DS260 ku buuxisid insha Allah biin laakiin waxaan idin balan qaadayaa hadan chance helo oo maaragtay case number na helo online ka inaan sida loo buuxiyo idin tuso waan jeclaa sanadka hore inaan tuso laakiin case number waayo dadkii dhan waa waxay ku jireen dhaqsi degdegayeen qof walba marka on time inuu ku buuxiyo rabay marka inta asxaab ahayn oo ii dhaweed oo maaragtay ku guuleystay inaan maaragtay qaato case numberkooda oo idin soo tuso aan live ku tusaan rabay ma rabin inaan maaragtay sample in ku tuso waayo sample su'aalaha way isdabmarsanaan karaan laakiin markay ay tahay mid oo real ah oo case number sax ah oo yahay marka way idin tusi kartaa fiican insha Allah biin la karimadu Ilaahay yiraahdo in aan helo case number asxaabta inta apply garaysan aan aqaano inta ila soo xiriir doonto oo maaragtay aan ka tusi doono kulli waqti badan kama qaadanay within maaragtay hal maalin umba aniga video yar ka duubaya yani idin soo dhigaya aniga qofkaas keeskiisa idin la wadaagaynin yani sida loo buuxinayo umba idin tusi doono insha Allah biin la karim marka waxaa isku daydeen at least bisha May 7keeda marka la soo jawaabo ilaa iyo June 7keeda hal bil ha kugu qaadato mid kale aan jeclaysay in la wadaago 2023 winnerska please ha degdegin hadhihin waa degdegaya hadhowdi su'aalaha qaar ha iloobin maybe waxaa laga yaabaa inaad employmentiga ama employment ah haysatay inaad maaragtay badan yihiin oo qaar ka kala tagtida macquul ah maadaama aad rush garaynaysid ama degdegaysid laakiin haddaadan degdegaynin oo time isiisid oo guuleysatid tartiibtaad laptopka soo qaabsatid buuxsatid it's alright oo yani waxba oo qaldin laakiin waxaa daran haddana inaad unlock dalbatid oo dhahdeen alla su'aal noocaasa xilmaamay inaan ka daba gaarsiiyaan rabaa unlock ma dalban karaa unlock waa dalban kartaa as much as possible aad u rabtid waa dalban kartaa laakiin dhibaatada jirta waxay tahay delay kugu dhacaya waqtigaaga aad dib guraya waayo wixii waa review garaysa gadaal soo celisay haddana waa dirtay haddana waa soo celisay marka problem waxay ku noqonaysaa waqtigaaga in maaragtay oo saamixi waayo oo unlockaas waqtiga dib kaaga rida ayaa dhici karto marka waxaa samaysaa adoo comfortable ah oo happy ah warqadaha soo qaado maaragtay foomka tartiib u buuxi kulli online waaye wax aad maaragtay warqado daawacanaysa ma jirto warqadahaas waxaa ku fiican su'aalahaas waa lagu weydiinaya DS260 wax ku buuxisay waa lagu weydiinaya marka waxaa muhiim ah inaad maaragtay waxaad ku buuxisay aad garanaysid bari interview marka lagu tagtid waxa lagu interview garanaya xogta milka lagama hayo meeshas un baa laga haya wixii ay soo qorto ba su'aal laga weydiinaya
iyo ma aragtay su'aalo kale yani xogo impossible iska aan bal weydiin laakiin ma badno laakiin waxa badana su'aasha 80% ama 90 waxay ka imaanaysaa DS260 saa usoo buuxsatay ka imaanaysaa marka on time ku buuxiya adigoo kalma ah ku buuxiya tada kale waxa iga waana ah haddii aad guuleysatid hasdhihin waa tagaysaa 100% waa tagaysaa hasdhihin adigoo guuleysatay interview lagu soo celin karaa interview ka hor lagula soo hadli karin xitaa marka property-gaaga ama hanti aad leedahay iska gadin maybe haddaad lahayd bajaaj ama dukaan lahayd lottery ku guuleysatay inta tiraada ha iska iibinin ha gadin alaabtaada oo maaragtay inaad ku guuleysan waysaa laga yaabaa hantidaada ha iska burburinin marka adigoo hawshaada socoto oo wadatid ayaad haddana waxaa samayn kartaa time siin kartaa oo maaragtay DS260 waxaa inta buuxiso waqtigaaga aad kusoo tixraaci kartaa haddii laakiin aad dhahdid waa guuleystay waa ogahay obviously waa tagaya hantidii iyo waxa ahayd iska burburisid oo na tagin marka khasaare ay ku tahay iyaga xitaa website-ku way kuwaanin doonaan way ku arki doontaa kule message-kaas oo ah yani ha iska gadin hantidaada marka waxaan lama hubo marka waqti qaado ayuu ku dhahay arki doontaa insha Allah bidnillaahi karim dad badan ayaa jira su'aal isoo weydiiyay gabadha isoo weydiisay DS260 waxaan rabaa inaan ku buuxiyo marka koowaad aniga carmar ku buuxiyo ama garoob ku buuxiyo ama yani dhaafos ku buuxiyo caruurna waa haystay caruurtan haystin kuma qorin marka caruurta ilama joogin yani maxaa sameeyaa marka isoo baxma ku buuxsan karaa hawa ku buuxsan kartaa laakiin su'aasha soo lagu weydiinaya xagee ku maqnaya caruurta soo lagu dhaxaya in adiga diyaarsata su'aasha jawaabteeda maaragtay ugu jawaabi lahayd إن شاء الله قولنا نكون رجينا يقولك ولا لا أجرو أو أصلا نسوي دي تلفون يكون بيحصل كورن هدي أمارة resolution كسبر كأولو نقولين أو سفي عني هاي أو فمات كسفي عين هاي information كلا وحاول كحريني سون just وصل كمبيوتر وحريني سون بوحريني سي وحيرة مش اسمه إيمان كرا لكن سبركم بحوجه إيرك إيمان كرا هدي أو فمات كوفر ريو أو يعني واحد resolution كس بدلين it's good في عند هاي أدمن ونكسنتها مركا قول أدينا نكون رجينا يا ولا لما نقول إذا مدر رجينا لما أنتين كله لما ودا guuleysan doono at least markay qofku dadka 100 qof yihiin in insha Allah 10 qof guuleystaan macquul ah marka inta kale aan guuleysanina waxaan u rajeynayaa inaysan hob rajo dhigin oo maaragtay next year apply gareeyaan waxaan waa trial just nasiibkaaga waaye waxba ka nijamin inaad ku guuleystaa laga yaabaa marka hadii adiga maaragtay dad waxa jirta 10 sano apply gareynaya up to now 2 sano apply gareynaya jiro dad 2 sano apply gareynaya dad 6 sano apply gareynaya dadka different way marka haraji dhigin rajada maaragtay mar walba maaragtay iska hooseynin iska apply gareey maadaama aan cost kugu fadhin lacag kaaga bixinin just internet information sawirka soo gasho ba kaaga bixisa intaasna ma aragtay inaad ku apply gareysaa by the way waxa kale oo iga dardaaran ah dadka kale oo soo apply gareyn doono 2023 apply gareyn doono 2024 winners ka noqon doono in ay baasaboorkooda si diyaarsadaan dad badan aan leh baasaboor la'aan lama apply gareyn karo su'aashaas baasaboorka waa lagu weydiinaya mar walba baasaboor la'aan ma soconaysid travel document waa loo baahan yahay dalka qof aad joogo Uganda oo isagana soo weydiiyay oo dhahay wala kaarki waxaan ku apply gareey qaxootiga maxaa aniga ila xaal ama baasaboor baa liga doonaya markaan guuleysto actually horta travel document haduu yahay oo maaragtay meel fiisul lagu dhufan karo hadii leedahay it can be possible oo ku tagi kartaa laakiin hadii meel lahayn waa ana baasaboor samaystid waay markasta baasaboor waa lagu weydiinaya in basiga tagaysa baasaboor soo samaysanaysa haduu baasaboorkaaga xogo maybe ka ahaystid qaldan yahay okay baasaboorka waa Somali mil lagu soo saari kar kulli I don't think so inuu jiro baasaboor cusub samaysan kartaa baasaboorka hore adoo tixraacin waa iga dhuma dhigi kartaa baasaboor cusub samaysan kartaa marka saasaan ku socodsiin kartaa adigana guul karan ku rajeyna insha Allah bidnillaahi karim dhamaanteena guul ay noo wada rajeyna insha Allah bidnillaahi karim qof walba reeydiisa xagaas tahay inuu si degan uu maaragtay oo dib lahayn ku tago ayaan u rajeynayaa dad badan ay interview maraa insha Allah bidnillaahi karim bisha soo socotay bisha kasii soo xigto bisha June iyo May mari doono insha Allah bidnillaahi karim oo Soomaali ah maadaama aanan badnayn Soomaalida laakiin haddana mari doono insha Allah ayagana Ilaah u barya inuu maaragtay Ilaah u fududeeyo interviewgooda marka intaas ku joojinaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak hal duceys insha Allah bidnillaahi karim wixii khayr ku jiro إله هنوافجيه